دولة عسوق هذا نيكا واحد قلت لي قبل حمك حب الله بفضل دولة عسوق هذا عسوق هذا ما يكسي ودريا وأوجد سيدا موقالك كم موقته وموادن لو دلي برتمها مجالده هرجيسة sababta loo dilayna ay tahay aano qabiileed ee darteeda waxa la sheegaa in muwaadinkan uu dilay qof in adeerkiya isla markaana ay qosayso arrinta qoys falka dilka loo geystay ee ninkan oo ah dil argagax leh isla markaana lagu dhex toogtay wadada dhexdeeda si arxan daraga waxa la sheegaa in reerkiisa iyo sidoo kale reer kale oo iyagu ilma adeer ahaayeen ay kala dhaxaysay arrimo khilaafa markii dambana reerkii kale waxay fursad ay ku heleen qof iyagu kamid ahaana oo qori uu soo qaatay ama bal la sheegaa inuu kamid yahay askarta ciidamada Somaliland ugu dambeeytiina oo wadada dhexdeeda ku dhaxarkay muwaadinka isagoo kaligiisa socda dil arxan daran isagoo aan ogeyn ayaa la sheegay in dhabarka oo kaga toogtay ugu dambeeytiina halkaas ayuu ku nafbaxay dadka magaalada ayaa isugu soo baxay iyagoo sidoo kale aad u baqaya haween iyo caruur isugu jira bartamaha wadada dhexdeeda mid kamid ah xaafadaha ama magaalada Hargeysa cabsidan iyo argagaxa ay ku abuurtay shacabka halkaas joogay iyadoo dilka lagu geysay goob aan munaasab ahayn isla markaana ahayd goob joogay caruur iyo haween oo ooynaya ayaa isugu soo baxay ugu dambeeytii muddooyinkii dambe magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka ee Somaliland ayaa waxa ku soo badanayay dhibaatooyin aad u badan taasoo ah in dadka shacabka isku laayaan aanooyin qabiil ee darteeda goor dhaweed ayay ahayd bilooyin laba bilood oo kala ka soo wareegatay markii wiil dhalinyaro isla markaana ay qafaasheen koox ciyaal weerar magaalada Hargeysa dhexdeedana si arxan daranna ugu dileen isagoo waliba ku qaylinaya garab hal isiyo muslim ma tihiin miya iyagoo dadkiina ay daawanayaan ama ba ay ka soo bixi waayeen guryahooda xitaa oo ay daawadeen dilka foosha xume ee loo geystay yarkaas dhalinyarada ahayd kani wuxuu daba socdaa dhowr dil oo aanooyin qabiil darteeda magaalada Hargeysa ugu dhacday isla markaana dadkaasi loo dilay qaabab kala duwan oo si argagax leh magaalada Hargeysa waxa ku soo badanaya dilalka argagax leh ee loo geysanayo dadka shacabka waliba si arxan laaba iyadoo sidoo kale la sheegaa in ciidanka maamulka Somaliland ay shacabka u geysanayaan tacadiyo kala duwan hadii mid kamid ah ee reeraha ay isku dhacaan mid kamid ah reerahaasi wuxuu tagayaa ciidamada booliska sidoo kalena isagoo raadsanaya in adeerkiisa kadibna uu soo wadanayo sidaasina ay ku in adeerkii uu ku dilayo qofkii kale ee muwaadinka ah qofkan uu kala dhaxayay oo dagaalka taasoo noqotay muddooyinkii dambe mid argagax leh oo yaab leh dilkan wuxuu ka mid yahay dilalka argagax leh ee foosha xume ee ka dhaca magaalada Hargeysa xaafadaha qaar kamid ah magaalada Hargeysa ayaa waxa ku soo badanaya dilalka loo geysto dadka shacabka isla markaana taasoo kalifaysa aanooyinka qabiilka ay soo heesaan ee dadka inay isku dhex dilaan ee gudahooda muuqaalka sida codkiisa aad ka maqlaysaan dadka duubaya waxay ka codsanayaan laamaha ammaanka ee Hargeysa in la soo qabto qofkii dhibtan u geysay ee muwaadinka iyagoo sidoo kale sheegaya in si arxan daran loogu dhex dilay wadada dhexdeeda iyagoo arkaya wiliba indhahooda shata si arxan daranna looga dhex toogtay mid kamid ah xaafadaha ee magaalada Hargeysa laamaha amniga waxaa la gudboon inay wax ka qabtaan ee dhibaatooyinka ka soo badanaya magaalada Hargeysa taa oo sababtay inay islaayaan ee shacabkii waliba aanooyin qabiil ay isu dagaalaan inta maamulka ay ku mashquulsanaayeen arrimo siyaasadeed waxa magaalada Hargeysa ku soo badanaya dilalka qorsheysan isla markaana loo geysanayo dadka shacabka taasoona ay qosayso aanooyinka qabiilna sabab ay u tahay inay dadka shacabka dadka la laaynayo isla markaana qofkii dilina iska baxsanayo isagoona meel aan lagu sheegaynin laamaha amnigana aysan kor iska saareen dilalka ka dhaca magaalada Hargeysa